يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب ليكن يومك للشعب ودادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta casharkeena waxaynu ka bilaabeynaa barnaamijkeena ku bara af Soomaali kombiyuutarka. Kombiyuutarku waa aalad dabka ku shaqeynaysa oo aad wax badan ku qabsan kartid, hawlo badan ku qabsan kartid, wax ka baran kartid haddii aad internetka aad isticmaali sidoo kale tusaale ahaan wax ku kaydsan kartid iyo waxyaalo kale oo aad u fara badan oo kale. qaybaha uu ka kooban yahay haddaynu nimaadno waa qayb hardware leeraa iyo qayb software leeraa. marka qaybta hardware-ka ahi waa wixii aynu taaban karno aynu arkayno sida keyboard-kan oo kale, monitor-kan, mouse, waxyaalahaas oo kale ay noqonaysaa. haddii aynu nimaadno qaybta software-ka, qaybta software-ka laba usii kala baxaysaa. qaybna waxa weeye system-kii ayaa u baahan, qaybna waa application qofkii baa isticmaalaya. qaybta application-ka waxaa ka mid ah Word-ka, Excel-ka, aduu wixii Office iyo waxyaalo kale oo fara badan. qaybta system-ka waxaa ka mid ah Windows-ka oo kale. Windows-ka baalka kombiyuutarka kugu shaqeynayay ku doonaya ahaado Windows 8, 10, 7 midku doonaya ha noqdee. haddaynu nimaadno sidee baad soo kicinaysaa start menu meesha loo yaqaano. start menu waa halkaa amase kombiyuutarka markaan waxaynu caadiga eegno waa halkaas sidaad soo kicinaysaa. halkan sidaad soo kicin kartaa ay suuragal kugu tahay inaad soo kicisaan. waxay kugu tahay 3 qaab inaad samaysid. midkood ka koobaad oo ah inaad marka hore iyada klik siisid. midka labaad oo ah inaad keyboard-kaaga taabatid calaamadda halkaas. keyboard-ka aad taabatid calaamadda Windows-ka klik amase Control iyo S labada aad isku qabatid. Control waa calaamaddaas iyo button-kaas xagga ku yaala sare. haddaynu intaa ka nimaadno aynu u nimaadno taskbar. taskbar waxa weeye halkan ay noo yaalaan calaamadda start menu-da, calaamadda search-da, waxaasoo dhan xagga inoo yaalaan. internetka iyo saacadda iyo waxaasoo dhan markay inoo yaalaan baleeraa taskbar. marka waxaan tegaynaa settingska markaan tagno halkaa ayaynu dooranaa klik baan siinaynaa. bacdeen markaynu klik siino halkan ayaynu ka bedeli karnaa. taskbar baynu sii dooranayna. taskbar baan u baahanahay deeto halkan imika waa hide wuu qarsoomaya. taskbarku marka mooska laga dulqaado wakaa halkaasaynu ku dhufanaynaa si aanu marnaba u qarsoomin. wakaa wuu iska tahay haddii laga dulqaado haddii kale waa isla halkii. isla marhaantaasna iminka applicationada waxaan dul yaalo oo dhan dhammaantood waa qaar yaryar waynu waaweyneyn karnaa. halkaa smallka ah waynu ka qaadanaa off ka dhiganaa. marka qaar waaweyn bay noqdeen saad aragtaanba. haddaynu yareynayno small, haddii aynu qarinayno halkaasan on ka dhiganaa. tusaalahaan halkaa button buu inoo yaalaa, xaggaa hoose inoo yaalaa. haddaan doonayna xagga sare ka dhigna ka waran geyn karnaa. xagga sare inaga geyni, xaggaa sare inooga soo muuqanaya. waad aragtaan xaggaa sare oo kaa kasoo muuqday. haddaynu u baahannahay inaynu dhinaca midigta wakaa xaggaas kasoo muuqanaya oo uu tegaya. haddaynu u baahannahay dhinaca bidixda isna waa la mid, xaggaas ayaa uu tegaya. haddaynu xagga kaga nimaadno iminka tusaale ahaan haddaynu raacino qaabkii shaashadda caddaanka ah u bedeli karaa. waan uga dhigi karaa mid madow
si iftiinka badan ee indhaha ku dhacaya uu yaraado. halkiiba soo noqonaysaa colors baad imanaysaa hoos baad u degaysaa halkaa ay ku qoran tahay choose your default avenue darkly automatically isbedelaya wax kastoo soo furtaana saas ayuu noqonayaa. haddaynu soo noqono imika tusaale ahaan style menu haddaynu imaadno waad aragteen midabkaas ayay leedahay. haddaynu isniraa ka bedela kaasaynu dooranayna deeto oo isbedelaya midabka okay. haddii aynu mid kala doorano tusaale ahaan aynu doorano kaasoo kale okay isbedelaya kaad u baahantaad ka dhigin kartaa adigu way. haddaynu intaan raacino qofku sideebay suuragal ugu tahay inuu backgroundka bedelo isla settingska adigoo jooga halkii kusoo noqo dabeetana background baa kuu dooran somaa waxaad samaynaysaa halkaasaad soo furnaysa isha markaad soo furtid ma inuu midab keliyati ku oolo mise slideshow gadaal baan ka sharxi doonaa haddii aan leeraa picture aynu eegno tusaale picture waxaan doonayaa inuu kaasoo keliyata ay ahaado midkaasunbuu ku ahaanaya halkaasuu ku ahaanaya laakiinse waad bedeli kartaa positionka oo kale tusaale hadaynu imika kaa doorano positionkana aynu ka dhigno tusaale mid qaabkaasi oo kale okay. hareeraha ayuu kasoo ergoayaa hadaynu ka bedelno miraa center oo kale tusaale si waafiya dhexda imanaya qayb baa ka go-aysa aduu hadba halkii uu qofku u baahan yahay. haddaba haddaynu nimaadno solid color tusaale ahaan waxaad doonaysaa inaad keliyatid midab keliyaad midabka aynu ka dhigno waad aragtaa midabka uu noqday. haddii aad doonaysid inaad ka dhigtid slideshow haddaba waa muuqaalo ama sawiraan muuqaal yaanan oran waa sawiro isbedelaya oo ilaa dhowr sawir ka kooban. markaa si aad u samaysid ama si aad uga dhigatid mid adiga aad computerkaaga kasoo dhex xulatay waxaad taabanaysaa browse. haddii kale waxaad taabataa teams si aad tiimam sii diyaarsanaa hore aad u isticmaasho. tusaalahaan waxaad isticmaali kartaa kaa 6 sawir 1 sawir keliyata 5 sawir kaad doonaysid waad ka dhiganaysaa. markaa hadda imika kan noogu jira waa kii 5 sawir ahaa waad bedeli kartaa. right click waad oranaysaa next right click haddaynu doorano imika tusaalahaan flowerska ama tusaale aan usoo qaadana flowers markaa midab gaar oo wataa waa isbedelaya ilaa waxa isbedelaya xaggana isbedelaysa. markaa adigu adaa hagaajisanay hadhow toole oo colorkaasay tegaysaa deetana kii aad doonaysa ka dhiganaysaa okay. dad soo noqotid halkii waxaad imanaysaa halkan ishaasaad soo furaysaa markaa ma 30 daqiiqado sawirku inuu hal mar isbedelo mise intaad doonaysid 6 saacadood adigu halkii minute ka dhigo. sawirku markaa xageebo kasoo muuqanaya waa sidii halkii hore intan kaa doontaad ka dhigan kartaa way. aynu ka nimaadno right click and see marka labaad aynu eegno oo bedelmaya saas ayaa isku bedelaya 6 sawirba way. aynu isku soo xidhno aynu nimaadno waxa loo yaqaano folder waa khaanad aad wax ku guran kartid. sidee loo sameeyaa tusaalahaan waxaad oranaysaa right click new baad oranaysaa folder amase keyboardkaaga waxaad taaban kartaa calaamadda control shift iyo n saddexdaasaad markii aad isku taaban kartaa oo samaysmay folder way. sidee baad magaca uga bedeli right click baad oranaysaa bacdeen waxaad dhahaysaa rename halka ku taalo ayaad dooranaysaa rename ayaad dooranaysaa magaca ku bedeli kartaa markaa amase waxaad oran kartaa calaamad intaad isaga dooratid F2 halka ku taalo ayaad dooranaysaa F2 way.
F2 waan doortay magacaad ka bedeli kartaa deetana saas ay noqonaysaa way sidee baa isiga dhigin garan karaa uga saari karaa computerka waxaad soo doonaysaa right click hoos u soo deg delete ayartaada waad ka baxaysaa ama se isaga dooro deetana keyboardka calaamadda keyboardka waxaad dooranaysaa halkay ku taalo delete waa ka baxaya markaa way aynu isaga doorano deetana keyboardka inaan delete taabano waa ka baxay haddii aynu nimaadno recycle bin meesha loo yaqaano recycle bin waa halkaa waxaa loo wixii aad soo delete garaysay ama si gacanta si keedisa kaaga dhacay waxyaalahaas oo dhan baxaan kusoo ururaya marka fursad baad helaysaa aad kaga saarto si wixii kaa soo qaldamay aad dib ugu ceshatid waxaynu rabnaa inaynu tusaalaan mid kaa celino dib u celino restore baynu odhanaynaa kaa kaleynu celinaynaa kaa kaleynu celinaynaa kaa kaleynu celinaynaa intaad u baahantay wixii adigu u baahantay baad celinaysaa way waxaasoo dhan baynu soo ceshaynay waa kuwa dib inoogu soo noqday haddii aynu rabno haddaba wixii aynu delete garaynay aynu iska soo qaadno delete aynu taabano way haddii aynu baahannahay inaynu waxaynu delete garaynay aynu kasii saarno recycle binka waxaasaynu dooranaa bacdeen right click c delete ma doonaysaa bu kaliya computer ka wada saartid yacni hadhow toole haddii aad u baahatid folderka dib uma soo ceshan kartid ama faylkaada laba doonayaba waad ka saaraysaa markaa way waxaad rabtaa oo tusaale ahaan in maxaan ku rahdaayey recycle binkaaga aad wixii ku jiray aad kaba saartid oo empty ka dhigtid right click c deetana empty recycle bin taabo yes dheh sidaasi ayaa uga baxayaa wax alaale wax ku jiraana ma jiro faawimadhay waa arkaa empty haddii aan rabno tusaale ahaan recycle binka ayaynu rabnaa ama tusaale ahaan maxaan ku rahdaay aynu xidhno maxaynu samaynaa marka haddii aynu file delete garayno oon delete orano si toosa wakaa uu kusoo dhacaya recycle binka kusoo dhacaya way maxaan samayn karnaa haddaynu doonayna inaanu kusoo dhicin maxaan samayn karnaa right click aynu oranaa deetana properties baan tegaynaa halkaasaan ka dooranaa don't move files apply baad leedahay okay baad oranaysaa intaa markaad samaysid waad tijaabin kartaa imika kaa waxaa ku qoran tijaabo right click c delete recycle binkii soo furo kumuu soo dhici waay marka hore waan soo xidhnay midda log ma soo siinay waxaan oranay haas yani faylku soo gelin baan oranay haddii si aynu orano aynu u ogolaano imika tusaale aynu ogolaano in maxaan ku rahdaayey ay dib u soo galaan halkii maad calaamadda ka qaadaysaa halkii horead ku celinaysaa ama custom size baad dhahaysaa apply deetana waxaad ku xigsanaysaa okay imika balkaaynu tijaabina aragta waxa uu soo dhacay soo galay waxaan intaa ku xigsiisanaa haddii alla yaraan run command meesha loo yaqaan ama se waxay qabato tusaale ahaan oo kale waxay faa'iidadeedu ay tahay iyo waxay qabanayso oo dhan haddaynu orano run command maxaa sababaya inaynu isticmaalno waxaan oran karnaa waxay noo fududaynaysaa intii aynu intaan halkan imanno application ayaan magaciisa hore u gelinayn inaynu baarbaarno ama file halka uu ku jiro oo kolba eegno intaynu waxaas oo dhan samayn lahayn aynu waxaan taabanaa windows plus r deetana wixii aad u baahan dalkaasaad ku dhufanaysaa okay waad leedahay deetana si yaroo fudud oo aan hawli kaa gelin ayaad kusoo kixsanaysaa waxaad u baahan tahay aan ku yar celino waxaad taabanaysaa calaamadda windowska iyo r oo kusoo kacaya markaa minimize aynu siin isaga markaa waxaa kusoo kacay waxyaalaha kale aad hore usoo furtay halkaasaad kasii eegi kartaa wixii aad hore usoo furtay halkaasaad ka booqan kartaa
intaaynu ku dhaafno isagana haddaynu dib ugu noqono hadda halkii control panel waxa weeye halka aynu wax ka bedeli karno settingska markaynu joogno amase computerkaba tusaale ahaan waxaynu oranaynaa control panel waxaan doonaynaa dateka buuxin taariikhda control baynu qoranaa control panel markaas soo baxay click baan siinay deetana halkaa kasoo booday waxaynu oranaynaa inuu hagaajiyo taariikhda markaynu hagaajinayno waxaan soo dooranaynaa feer noqdaya colloquial region control panel colloquial region date and time markaan orano halkaas iyada ah ayaynu ka bedelinaa taariikhdii marka wixii sanadkii bisha la tacalluqa halkaasaad ka bedelaysaa wixii maalinta saacadda iyo miradhadii sekanadii waxaana xagganaad ka bedelaysaa iyada marka waxaad leedahay okay baad soo oranaysaa apply baad hadhow toola siin doontaa okay baad ugu dambeysin doontaa waay haddii aynu ku xigsiisano backgroundka oo kala bedelno iminka midkan bay inoo yaala inkastuu stillaar show yahay oo bedelayo iminka waynu bedeli karnaa waxaynu ka dhigan karnaa mid kale sawir kale aynu soo gashanaa tusaalahaan settingskaad imanaysaa halkaasaad dooranaysaa calaamadda background block iyo colors halka ay ku jiraan ayaan ku dhufanaynaa click markaan siino inoo soo boodaysaa markaa waxaad doonaysaa background ka dhiganaysaa ama color buu ku noqonayaa mise xabad sawir oo keliyata mise slideshow hadaynu sawir keliyata orano sawiraan badan baa halka inooga soo baxay hadaynu kaa kala tusaalaan doorano amase aynu kaaba doorano hadba kii aan u baahannahay oo kale si toosa ayuu isbedelayaa kaasoo keliyata jiraya halkii laga bedelayna meesha ka baxaysa haddii aynu ku noqono aynu orano bal waxaad nooga dhigtaa tusaalen solid color ba haddaynu orano waad aragtaan saasay noqonaysaa laakiinse slideshow waxa uu kaga duwan yahay isagu mar walba waxay noqonaysaa in marka hore aad soo dooratid team deetana sawiraan fara badan ayaa isku kaa bedelaya muddadii ah tusaale ahaan change picture every 30 daqiiqo mar bedel halkii daqiiqo tusaale ahaan mar bedel 10 daqiiqo inta doonaysa ka dhigaysaa marka amba sawiraan yaala computerka ku jira aad soo doonayso waxaad oran doontaa browse bada halkaasaad ku dhufan doontaa browse-ta amase waad iska bedeyn waxaad oran doontaa teams deetana tiiman fara badan kan flowerska oo kii ku jirayo 6 sawira kan xabad sawira kaas sawir keliyata iyo kaasoo 5 sawira waxaan ku dhufano markaan kaasoo doorano waxaad oranaysaa halka dooratid halkii baad ku noqonaysaa backgroundkii aad soo noqoto bal checkare inuu isbedeshay loo kala waxaad oranaysaa bal ii bedel next halkaas in maanta ku joojin doonaa cashiraanteena aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu